shan sano waxaanu ku hayay qabkii soomaalida la soo celiyay qabkii soomaalida wuxuu ku soo dhammaaday Twitter gabar Maraykan ay soo qortay tii warninkii waxa iska dhiibi karaa qabtaa qabkiina halkaas ku soo dhammaaday horta musalsalka oo la leeyahay hanti wadaagana barwaaqo keena qabkii soomaaliyana waa la soo celinaya oo wax isku wada soo xirnay waayo in saas loo fiiriyo runtii u baahan dhaqan siyaasadeed aad u liito waaye oo ku dhisan kala talisnimo sideeda waxay dhashaa kala irdaynta bulshada ku tumashada xuquuqda muwaadinka waxay kaloo dhashaa ku takrifalka awoodda marka ugu dambeysana kalsoonida dishaa waa lagu kala tagaa dalka sideedaba adduunka waa islaamta meel kasta joogta kala talisnimo waa saas hadda xaaladda dalka xagee joogtaa xaaladda dalka soo sheegay waa professor xasan sheekh cali madaxtooyada dhexdeeda xafiiska xukuumadda iyo xafiiska madaxweynihii hore laba ciidan oo iska soo horjeedaa wada kor saara xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda ciidanka kor saaran ee ilaalada ka ah ee ammaanadooda soo arkay iyo kuwa meesha uu ku xariisan yahay odaga xilkiisa dhammaadee farmaajo ah waa iska soo horjeedaan madaxtooyada dhexdeeda xabadda isku haystaa horta waxaan u baahannahay taas inaan horta meel saarno golaha wadatashiga qaranna la shiro isugu yimid waxaa laga rabaa koow inuu ciidankaas kala qaado horta oo labada nimid meesha laga soo saaro sababtoo ah maxamed xuseen roble waa ra-iisul wasaare xilgaarsiina xilkii dalku hayaa shaqadiina dastuur iyo sida la sheegay siyaasad baa isagaa loo dhiibay ninkii kalena waa xaraysan iyo hadda makri iyo shirqool ku maqan yahay labadii ciidanna madaxtooyada isku hor fadhiya si loo kala guro waxaa sahlan ninka xilkiisa dhammaaday oo inqilaabku isku dayay oo fashilmay golaha wadatashiga qaran si fiican loo dhageystaan iyo beesha caalamka fariimaha soo diraysa iyo annagaba waa inaan isku raacnaa si nabad filla Soomaaliya dhexdeeda uga dhacdo maaha meel kale nabadda meesha ka dhacay si filla Soomaaliya dhexdeeda nabad uga dhacdo oo nabad loogu wada noolaado bahashii filla Soomaaliya dhex taagan tahay ninkaas odaga in laga soo saaraa qodobka labaad taliyaasha ciidamada hadla maanta waa fiicantii laakiin hadalkiina hal mid ka dhimo ina iscasishiin waxaan u soo taagneedeen weeraradii iyo dagaaladii dalkan ka dhacay qaarkiin hormood oo ka ahay waa ogtihiin qaarkiin shala ugu dambeysay fidnada qayb ka ahaayeen oo dadda mudaaharaada ay hor joogeen ay diidayeen walaalayaalow si aan fariintiina u maqalno iscaasila waxaa la magacaabaa taliyaal aan dagaalada qayb ka soo noqonin oo fidnada ka soo qayb gelin midoo professor xasan sheekh ka sheekeeyey boosaaso laga soo bilaabay laakiin Soomaaliya isdaba tahay ragaa ka soo qayb gelin oo saraakiil iyo gabdho saraakiil u baahannahay naga horwareega waxaan kala markaas waxaan isaga imaanaynaa doorashada sida loo toosinaayo sida malxiis loo joojinaayo sida odayaal sheegay kursiga la dhacay loo soo celinaayo si aan kuraasta 275 qabiilaha iska leh reer hebel iyo jufa hebel aan yiraahdaa madaxweyne dowlad goboleed iska male ninaa arkaysaa xildhibaan doonaa ama nin siyaasi oo kursi rabo ama nin kursi ku fadhiyo difaacanaya elaboorku wuxuu u taagan yahay madaxweyne dowlad goboleed walaalo maxaa u taagantaa kursiga ka rabaa kulay waa kursiga madaxweynaha qaar Facebook oo kale xafidahu Allah madaxweyne hebel ku haya maanta war maxaa ka wada kursiga ka rabaa waa kursiga qabiilka iskale ma saa iskale ya Allah سوي وروح الله ماشي حتى يدافع من هكذا لا من دكتور أمان الأهم أو PhD هولدر حنقول مدحونات والقوات كمالك أمانة معك وده كرسي ولا كرامة وهذا كسر شيء شعب مليء السياسة مياه فرع مدير معاوية سياسة الموفيس ما هو هذا politics of موفيس يعني هذا ضل كان ما أنفعه إنما أنا بدمالي كرتو
karaamada iyo dignitiga iyo sharafta bini aadamkana waa qaaday maadooda nin saaxiibkeeda golaha wasiirada aan ka watirsanaan jirna arag facebook wuxuu soo geliyey farmaajo meelahaas u socda maaqa wasaarada u furaayo beeraha meelaad maaqaan nin oday oo weyn waa facebook wuxuu soo geliyey sida uu madaxweynaha jidka ku maray taariikhda buwaagta lagu qori doono isoo ammaan elaboorka ii istaag isoo dhaweey ya igu salli i ammaan aniga madaxweynaha dowlad goboleedkan oo ogyahay inay been tahay naftiisu ogyahay kii kursi ka soo qaataa subax dambe elaboor tegi maayo war waxaa siyaasad maaha hadda waxay mari xataa wiilashan yaroo fila soomaaliya joogaan la amaanaa xataa si kursi looga helo war waxaa siyaasad ma ah dadnimona maaha waxaa waaye farmaajo waa inuu filla soomaaliya soo baneeyo hadda maxaa usoo baneeya si filla soomaaliya nabad looga helo ayaa qoriyaas hor fadhiyo qoriyaas markaaga filla soomaaliya laba qoraya iska soo horjeeda waxaan u mahad celinayaa wiilasha madaxtooyada ilaaladeeda ka mid ah ee geesiyaalka ah ee maalintii inqilaabka diiday taariikhda meelaa nooga qorantihiin waa la yaqaanaa magacyadooda hebel iyo hebel aan naqaanaa geesiyaalay ahaayeen waxaa kaloo ammaana ugu celinayaa ra-iisul wasaarihii waa diiday xataa maxamed xuseen roble inuu baabuurkii ku tegi jiray xafiis ku tago waa diiday waa lugeeyey kartidaas iyo geesinimadaasna waa ku mahadsan yahay maxaa noo dhiman ninka odayga oo iska soo bixino ra-iisul wasaaruhu taladii dalka maalinood 24 abriil waa ogtihiin waxaa noola kaga qaaday asagaa lagu wareejiyey wax lagu wareejiyey ma jirin asagana naftiisu hafray annagana waa hafarnay wax lagu wareejiyey ma jirin inaan lagu wareejin habeenka 27 December aragnayba marka waxaan u baahannahay markaan odaygana in la soo baxsho oo annaga jaaga nala soo dego musharaxiinta meeshay degan waxaa ku soo ra-iisul wasaarahane awoodda loo madax banneeyo iyo talada taliyaasha ciidamadane statementigiina waa fiican yahay laakiin waxaa ka dhiman inaa idinkiisa casishiinaa ka dhiman madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada waa mahadsan yihiin kuwii taageeray ra-iisul wasaaraha kuwa dhuumanayo oo bannaanka u soo baxa male inka yeelaayo dadkaan iyo deegaankaanaan matalaa wixii 27 December dhacayna waa ka aamusaa ma layska yeelaayo meel inkaraysa maaha